الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين waxaan ku soo jiray matnigii mukhtasarka ahaa oo fanigii usul fiqhi aan ka bilownay matnul waraqat oo abul maali imaam al-haramayn iska lahaa sheekhu wuxuu noo soo sheegay fanigii usul fiqhi loo oran jiray inuu waayo macnaha kitaabkan iyo waraqahan uu ugu talagalay lafdigii usul oo jamcu aslin ahaa iyo lafdigii fiqhi oo loo ilaafeeyay tiibu marka ka soo taabtay kulku asalkii uu waxay hadana waa marka farci oo ka soo horjeeda ila shayga wabilidihi tamayyazul ashyaa'u sideedaba wabilidihi tamayyazul ashyaa'u shayga waxa lagu agartaa inta badan lidkiisa habeen maalin rag haween samaartid kor hoos lidka shayga lagu gartaa mar hadduu asal uu ka hadlay uu ku yiri afal aslu ma yubna alayhi ghayruhu weeye farcna maxaa la dhahaa ma yanbani ala ghayrihi ghayrkii wax ka dul dhisma asalkii intaas kaga hadlay ma ogtahay fiqigu muxuu yahay buu ku yiri fiqigu marka taabtay hadana wuxuu ku yiri fiqigu waxa weeye macrifatu al-ahkam ash-shar'iyyah allati dariiquha الاجتهاد فقه ماشي محل لوجه جدا إلى أصل اللغة الفهم ومسكهنجري أصل اللغة الفهم ومسكهنجري لكن ماشي محل لوجه جدا أحكام شرعية أهيد اجتهاد كاللجوء جاري جرش هذا فقه اللي هذا بكل أحكام شرعية مرة دويها ضرب وربع كرش وأحكام شرعية شيخ محيطة أحكام مقابصة وتضبوكي نمبرنا مكفر يا وكان لهين تقسيم كان شيخ وحكسي معان تقسيم كي ثنائي جاها وأحكام التكليف إيوه أحكام الوضع لو كلا قاد هاي سووا سكوا لحضري شنتي أحكام التكليف كوش شيء لكن شنتي ويا أحكام الوضع جاهاي يوم بكل يكشيء ولماذا وحير هذين لبضع وشيخ وقعتي صدح ذاك له وأها يعني السبب يا شرطي يا مانع أها لبضنا كحوق بدنه إن لهوس قليو بصورة قلة معناها صحيحة يا بادل كحوق بدن مركا إن لبضنا كان لسكسوس قليا لقى يابا هي مركا وحنو جو 10 كأني أحكامتي شرعية أهي تضبي نقم بالويل شنو أحكام التكليف تعريف كذي يا شيخ خصوصي وانصوم مري شنتي خطاب الوضع أهيد أما أحكام الوضع أهيد شنتي مركا لبدي وشيخ كشيء واكون هي والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به شيء يعني صحيح وبيع صحيح ونكاح صحيحة وصلاة صحيحة وحج صحيحة أما عبادها هذا أما معاملات كلها هذا شيء قاسي مرك والصحيح لليه محل لوجه جيدا محل لوجه جيدا بكل شيخه واسيد كورن كسر شيء أثر كمرك شيء وأنصحه رات كدر الهي رات كدر الهي مكعبري أما تعريف كيس رسمي جاها صحيح هون نقول لها بيرهدين والصحيح ما وافق الشرع مما يقع على وجهين بالله شيء لبدنا عود ذكره dhinac fiican iyo dhinac xun kolku shariicada islaamka waafaqo oo dhinac fiican u dhaco saxiix baa la yiraahdaa hadii uu dhinac xun u dhacana baadilka soo socdo noqonaya way iska soo horjeedaan saxiix iyo baadil wasaxiixu ma waafaqa sharciga wixii waafaqay weey oo mimma yaqacu ala wajhayni shay laba wajh u dhaca ah sharciga khilaafkiisa iyo sharciga waafaqiisa labadaas u dhici karay kolku وافق شرعي ودعو حلقاس على شجري وصحيح بيعني وهو نقضي بيع الشرعي جاها وشرع الإسلام كسي بيع وتلقى شيء وافقي وصحيح بالله نكاحني وهو نقضي نكاحي
waayahay markaa shareecadu say ugu talagashay waafaqay oo arkaantiisii iyo shuruudiisii iyo wixiisii helay mubdilaad iyo wixii burinayayna waayey kolkaasaa waxaa leeyahay waa nikaax saxiixa salaadani kolkiiba le markaa salaadii sharcigeed ay noqoto oo ay arkaanteedii hesho shuruudeedii hesho oo mubdilaadkeedii ay weydo xilligaasaa la leeyahay waa salaad saxiixa ah marka maa waafaqa sharca mima yaqacu calaa wajhayni shay laba dhinac u dhici kari hadda saxaabigii nabiga ku agtukaday sala allahu calayhi wasalam oo kolkuu nabiga u yimid uu yidhi nabigu salaamtu ka radiyey irjic fasalli fa innaka lam tusalli bal salaadiisa awuu tukanay saxaabigu taagniduu taagnaa iyo wuxuu aqrinayay wuxuu foorfoorsanay salaad bay ahayd laakiin salaadaas maxay noqotay waxay u dhacday shareecada si aan waafaqsanayn wax kama jiraan bay noqotay marka soo aragtid kolkii salaadii kolkii dambe la barayna oo sidii sharci waafaqsan u bartayna hadda lillahi waa sahih oka wasahihu ma waafaqa shar'a mimma yaqa'u ala wajhayni wajh toosan iyo wajh khaldan shay u dhici kara wajhii toosnaa markuu u dhaco yaa sahih la yiraahdaa haye marka wajhii toosnaa markuu u dhaco oo uu ansaxo maxaa ka dhalan marka salaad ansaxday maxaa ka dhalan kara nikaax ansaxay maxaa ka dhalan beec ansaxay maxaa ka dhalan salaad ansaxday maxaa ka dhalan bas in la toodoobo oo la salaadani way ansaxday ruuxani culayskii waa ka dhacay qadla looma haysto dambi looma haysto dayn looma haysto way fushay bal beecani wuu ansaxay sidii la rabay buu u dhacay way marka milki guur baa iman haya ruux mushtarku wuxuu la wareegayaa way markaas mabiicdii buu la wareegi way markaas baayiciina thamankii buu la wareegi raadkaas kaasa ka dhalanaya ku fahmi nikaaxu wuu ansaxay soo maaha waxa ka dhalanaya inay baad markaas way marka nikaaxa waxa ka dhalan jiray oo de tabatuci iyo reed isu xalaaloobi iyo wixii baa ka dhalanaya tiibu sheekhu ka cabiray dambe marka taas ka cabiray wasahihu ma yata'allaqu bihi waxa uu ku tacalluqa weeye an-nufuudhu inuu fulaxu nikaaxu haduu ansaxo inuu fulama waan reerkii gabadhii la xalisho reerkii reer noqdo Soomaa beec uma ansaxo kolku ansaxo inuu fulama oo ninkani qaato neefkii u gatay kana lacagtii wada way markaas u neefkiisa u qaato Soomaa oo ka fulitaanka la sheegay waa raadkii dambe ogow kolku ansaxay kadib raadkii dhalinaya way mimma yata'allaqu bihi an-nufuudhu oo yu'tadu bihi la toodoobo waa cibaadadii salaada nufuud kala ma lahe salaada markayd aad sharcigi waafajiso xilligaasay ku tirsan tahay oo lagu tirin oo ku tuudoowi oo dalabkii ilaahay uu ka rabay ay ka dhici ay oo dayn iyo qadad dambe laga rabin kaasa la yiraahdaa wal baadilu ma la yata'allaqu bihi an-nufuudhu wa la yu'tadu bihi waa kii hore cagsigiisii taariifkan hore u soo sheegnay kolka lagu yiri wasahihu ma waafaqa shar'a mimma yaqa'u ala wajhayn kana ayrun da markii ka dhig wal baadilu ma khalafa shar'an كيور ما وافق شرع صومين والباطل ما خالف الشرع مما يقع على وجهين شيء لبد إن عود عكرا كل شرع هذه خلافه أو إن عكرا ود عليه باطل وي نكاحني باطل وي شرع هذه بخلافه صلاتني باطل وي شرع هذه بخلافتي سؤالك والباطل ما خالف الشرع مما يقع على وجهين كل مركز باطل نقض محاكا دلن هنا لا تذوبين لا ترين سوما ما بيعدوا نكي بايعد كما ملك غوريس نكي لعقته هيسي neefka soo iibsaday neefkaasi milkigiisa ma galahay lacagtiisu wada kama milkigiisa kama guurayso nikaax mar haduna saxan gabadhii wax wala qurqurjumiye la yiri uma xalaaloobayso sidoo bay ajnabi xaraan uga tahay uma xalaaloobayso maahin salaadii baad marka aad tukatay kol hadii shuruudeedii la way ama arkaanta wax ka jabnaa ama mubdilaad kala la timid salaad tirsan ma fasalli fa innaka lam tusalli ba taagan lama toodooba haye way war wal baatilu شيء باطل كيه ما شيء ويه لا يتعلق إنسان كتعلق به شيء قبا النفوذ فلتان وحوم كيف فلو ولا يعتد به شيء أن لا تذو بين عبادية عمل هذا أحكام تمركوك كتب الفرق بين الفقه والعلم والظن والشك فقه جيبه ولي الله يستاه فقهي يا ولي الله يستاه معرفة الأحكام اللي والفقه معرفة الأحكام الشرعية وكل موت أحكام تبدأ حلقة ولي فقهي اللي قامت تجي والفقه فقهه أخص متك قارن ما بدن ويك خاص من العلم علمي جود هان
فنونta diiniga kulli way iswada kaabi way iswada xoojin waa la isku wada fahmi maxaa yeelay isku dhinac baa loo wada kitaabka ilaahay iyo sunnada nabiga sallallahu alayhi wasallam sidii loo fahmi lahaa loo ilaalin lahaa wax loogala bixi lahaa ujeedadu way markaasaan naxwadii iyo sarfigii iyo balaaqadii iyo usul fiqhigi iyo mustalixi iyo waxa dhan way iswada cashanayaan oo ma kala maarmaan ilaa kulli baad markaas isku meel bay ku aroorahayaan ta kale waxa weeye soo qolo walba istilaax afgarad soo ma leh culumtani aad aragtaani waa afgaradka culimada urfiga afgaradka culimada way shayga noocaas asaasan u naqaana haddaad culimada af aqoonin maada la wartami kara marka lama warrami kartid culimada haddaad af aqoonin lama warrami kartid ogow lama sheekaysan kartid ama isma fahmi kartaan ninka af taqaanaba si fiican isu fahmaysaan marka fiir hada wal fiqhu akhassu khususiya wa aami khas akhassu min al ilm wa meeshi loo ranjiro laba shay marka la soo fiiriyo waxa weeye baynahuma umumun wa khususun mudlaqun macnaha meelna way wadaagaan meelna mid baa la dheer ka meesha la dheer baa caam ah maxaa yeelka kale intuu haysto dhanna wuu haystaa in kale oo gaarana wuu haystaa kan asaga waa laga caamsan yahay maahay intaad haysata baa lagu haystaa in kalena waa lagu dheer yahay shayga noocaas maxaa la yiraahdaa baynahuma khususun way marka waa umumun mudlaqun marka fiqigu ilmi oo fiqi oo dhani ilmigii buu noqon sida hada laga wado ilmiguna fiqi kaliya ma aha naxwadii sarfigiiba waa cilmi iyo mustalah ya culumta kale samaaragtid illa fiqiga maanta meesha loo jeedaa kii luqada fahamka ama waa kii lagu soo baray oo macrifatul ahkaam samaaragtid waayo allati dariiquha waayo marka al-ijtihaad lagu yiri oo sharciyada kii buu khaas ku yahay wal fiqhu fiqigu marka akhassu wuu ka khaasnimo badan yahay min al-ilmi lafdiga ilmi marka leeyahay lafdiga fiqi ilmiga qaamsan oo culumtii kala dhan oo ilmu fiqi iyo ilmu nahwi iyo ilmu sarf iyo ilmu mustalah iyo waxa dhan baa hoos gali ilmu usul fiqi waxa dhan baa hoos gali akhassu min al-ilm ay kulku shay taabtaba shaygiibu marka iyo hadana kuugu abtirin oo ilmiga uu fiqi ka khaasayay muxuu ahasagun aan baranne wal ilmu ma'rifatu al-ma'lumi ala ma huwa bihi fi al-waqi' wal marka raad buu ka dhalnaa mugta kala farqahaya kulku shay abtiriyo unhun usul fiqi buu ka bilaabay usul fiqi usul maxaa la yiraahdaa fiqi maxaa la yiraahdaa fiqi waxa la ahkaamta la barto ahkaamta maxaa la yiraahdaa ahkaamta hadana ka hadal fiqiga iyo cilmiga ya khaamsan cilmi hadii way marka cilmiga la sheegina muxuu yahay hadana cilmi waa inuu kulma mid oo abtiriyo marka ayaa kala dhalanayay wal ilmu ilmigi ma'rifatul ma'lumi ma'rifatu ma min sha'ni an yu'lama ma'rifatul ma'lum tahsilul hasil bu noqon bilan ma'rifatu ma min sha'ni an yu'lam على ما على وجه وجهنا الله برتو وجهاسو هو شيء به وجهه وسغناداي في الواقع نفس الامر حقيقه هي نفس الامر والعلم اديل ويادرته waxay culimada qaar kood cilmi wala wada garanay waa badiyaha la iska daayay cilmi wax la yaqaan oo baahnay taariif cilmi wax la barto wax la garto hal iska daayay sheekh iyo rag la midka waa kan way taariifiyeen waxayna cilmi waxa la yiraahdaa shay in la barta sidoo aha markii loo barto baa cilmi la yiraahdo samaaragtay shay inayna baranin ba meel taxta thara miyaan baran karaa shay in la barta in la barto u soo baday sidoo aha markii loo barto baa cilmi la yiraahdo samaaragtay shay in la barto marka hore ba aan ahayn ama ma aha si kala loo bartay kolka cilmi ma noqonayo wal ilmu ilmigi معرفة المعلوم شيء إن لبرتها إلا كل كاتقيني شيء أتقيني برشديس معلوم إلا ما شيء لا يقان شيء أتقاني برشديس وهو تحصيل حاصله شيء أتقاني إن برته وهو تقاني سيد بران معرفة المعلوم معرفة ما من شأنه أن يعلمه شيء إن لبرته شأنه سوءها كل كات برتا علم الإله سيد بران يسامرك على ما على وجه يدنا يجهر بران يسا هو شيء به وجهه وسغن yahay في الواقع نفس الامر
xaqiiqada ilaa shaygu hadda tusaale ahaan darbigan dhinaciisaas dhagaxbaa yaallaa lagu yidhi dhagaxaasi ama wuu cad yahay ama madow yahay ama gudan yahay siduu buu yahay siduu ahaa markaad aragtood u ogaato kolkaasaa cilmi la yidhaahdaa laakiin si kale haddaad u ogaato asagoo caddaaya madow haddaad u ogaato taas waa inoo imanaysaa jahli bay noqonaysaa bilcagsi kaasi waa cilmigii cilmi haddii la sheego maxaa ka soo horjeeda wabiliddihi tamayazu lashyaau cilmi haddii laysu sheegay maxaa ka soo horjeeda jahli war jahligu maxaa lagu yidhahdaa marka waljahlu tasawuru shayi shay oo la suuraysta weeye calaa khilaafi maa huwa fi lwaaqic jahligu waa labay dheheen culimmadu jahli basiid ah iyo jahli murakaba jahliga murakabka abu sheekhu marka inoo tacriifiyey jahliga basiidkii intifaa'ul cilmi wey intifaa'ul cilmi amma min sha'nihi an yuclam shay in la ogaado ahaa oo aan magacaada u cilmi yeelanin un wey kaasaa la yidhaahdaa jahli basiida shaygii inaad ogaataba xaalkiisu aynan ahayn oo waxyaalaha makiibaadko innagoo inaan shuqul ku lahayn ama ilaahayba ula gaar noqday ah kaas ogaan la'aantiisa jahli lama yidhaah kaa ogaan la'aantiisa jahli ma aha shay baadle marka shaanigiisu in la bartaba ahaaba ma ahaba haye shaygi marka inaad barato kugu suubanaa ood baran weydo kaasaa la yidhaha jahli basiid ah intifaa'u lcilmi ama min sha'ni an yuclam waa caamadii caadigaheed oo kale tusaale ahaan cilmigii inay bartaan way u habboonayd wayna iska daayeen ha ahaatee waxay ku fiican yihiin inayna aqoonu lahayn ways og yihiin inayna aqoonu lahayn ways og yihiin jahliga noocaasa waxaa leedahay aljahlulbasiid waa ka dhibka yar jahli baa dilor jahliga dhibka yar wey kan sheekhu baad uu inoo sheegayna maxay yahay waa culimada barkood waa jahligooda waa masalada xaftu isugu baaba'do mas'alada kitaabkan tusaale ahaan maba taqaanid inaad aqoonina waa is og tahay jahli basiida wey kitaabkii iyo masaladii ma fahansanid inaad fahansan tahayna waa ismoodi waa jahliga murakabka kaa weya marka kaasaa la yidhahda waa taxaartu ay ruuxliga isku jijabinayso masaladu waa saa kii haddee waafaqay oo cilmigu u soo baxay la garaye kii baad marka masaladu say ahayd si kale ugu dabagado u suuraysan tahay jahli murakabaa la yidhaahdaa shaygii buu si dabagedoona u suuraystay shaygii uuna garanin waa jahli inuuna garanhaynin oo uusan garaninna waa jahli kale soo aragtid mana garanayo inuusan garanayn ilaa caamadu waxay ku fiican tahay shayga ma garanayo inayna garanayninna way is og yihiin bannaankeedu waa jahli basiida kani shaygii ma garanayo inuu garanayona wuu ismoodi waa jahli labadaba og tahay oo inuusan garanaynin ma garanayo rajulun laa yadrii walaa yadrii annahu laa yadriidii wey fahuwa jaahil murakab rajulun laa yadrii walaa yadrii annahu laa yadrii inuusan garanayninna ma garanayo fahuwa jaahil murakab jahli murakaba kiibuu marka sheekhu cabiray wuxuu yidhi waljahlu tasawuru shayi shay oo la suuraysto oo in la fahmay la ismoodo calaa khilaafi maa huwa shaygu siduu ahaa fi lwaaqici nafsulamarka siduu ahaa si daba marsan oo shaygii u sawirato inaad u fahanto kaasaa la yidhaha waa jahligii murakabkaa masaladii baa si qalloocan u fahantay yaa kaa rujin kara marka jahli murakabaa la yidhaahda waa dhibkiisuu leeyahay waalcilmu cilmigiibu marka haddana dhinac kale addaruuriyu cilmigaa muxuu u kala baxaa waa cilmiga laga hadla ogow waa cilmigeenna cilmiga xaadidka ee bani aadamka iyo cilmigeenna wey cilmullah iyo waxaan shuqul ku leenahay maaha iyo waxaan tacriifin waxaan waxayn karo cilmigii waa marka laba ah cilmun daruuriyun waxaa kaloo la yidhahdaa cilmun badiihiyun waa isku mid daruuriyun wa badiihiyun waa isku mid iyo mid muktasaba muktasabun wa nadariyunna waa isku mid cilmigaa laba ah cilmun daruuriyun ama badiihiyun mid la dhaha iyo cilmun muktasabun ama cilmun nadariyun labadiibu sheekhu kuu sheegaya waa ka fiira marka waalcilmu cilmigii addaruuriyu ee daruuriga ahaa daruuri waxaa loo leeyahay waa cilmi ku qasbanhay cilmi ku qasbanhaya wey
wada shaki shubha ku furi karin wada isdiidsiin karin waxaan darbi ma aha waxaan muxraabkii masjidka ma aha mutuleel ma meel odhan kartaa hadda dirqibu kugu isku gelinaya ma inkiri kartid soo aragtid shan qarbaad maqashay alla ma maqlahay ma diidi kartid ma isdiidsiin kartid soo aragtid dirqibu kugu galahaya suuragal waxaad aragtay sidii wadaadkii la sheegay libaax baa qaaday asagoo jiif markaasuu ilaahu ilaahay dadka weel kolku libaax wata ark ilaahu ilaahay dadka weel buu ilaahay bay markaad eleeladayso manaamki baadoo libaax ku qaaday iyadoo balaayo ku eriyay iyadoo doobiyo ka dhacay iyadoo biyo yaa inta baa weelada kolkaad adoo naxsan soo toosto oo adoo gogoshaada caadi joogta alxamdulillaah rabbil farxay ma ogdahay kolkaasuu libaax dhabaar u qaaday ilaahu ilaahay dadka dhig buu waxa ilaahu ilaahay dadka weel buu yiri waalay marka laguma kari kara cilmiga daruuriga ilaahu ilaahay dadka weel kullu kari kara ma marka wuxuu ku yiri wal saasa daruuri loo leeyahay badiihina macnaha waa iska waadix waa shay aan daliil u baahnayn ka shamsi baad marka talagu miisaaliyo kale qoraxda fi raabicati naar qorax banaanka joogta miyaa daliil kaaga baahan wariya maanta hadda waqtigan meel la oran kara ruux ma maalin baa mise waa habeen waa maalin daliil inay maalinta daliilkeen hadda ruux miyaan dhahayna waa waadix waa badiihi baa la yiraahdaa waa shay badiihi ah waan u baahnayn daliil u baahnayn way marka kaas ama badiihi ama daruuri saasa looga jeedaa wal ilmu daruuriyu ma shay weeye la yaqacu aan dhicin aan nadarin fiiro in la baadbaado iyo wasidaan in daliilo raadsado maxaa calaama maxay tusinay kan uma baahnaba banaanku iska yaalaan ka ilmigiiba weeye al waaqic dhacay bi ihda al hawaasti mid kamida ku dhacay hawaastiiday al khamsi ee shantayd الظاهرة بنانولكي حواس بعدنا كوا أي وحاس اللي منوكته بعدين كحواس بس اللي تسوله جاجا كويس حاجات كدرنت سمعت جاجا كويس حاجات كدرنت عبسي بقى كويس حاجات كدرنت سمعت تاسوا بعدين كلام مرة ظاهر كان حواس ظاهر كان شنطة ومحيتها وهي حواس شنطة وحلوط ظاهر كلوط دريمه ظاهر كي السمع ومقال كيوي shan qar baa baxay dhagihii baa lagu dareemay shan qarkeed maqashay bas dhagtiis la waqtigiiba la meesha waxa laga ogaado waa xagee al ilmu xagee ku tacalluqa waa qalbiga soo maaragtid qalbiga u gudbisay neef loo haaciyay baa lagu leeyahay warheebelo ruux ku yiri dhawaaqood maqashay moogtahay waa lagu dhawaaqay dhagtii maxay u gudbisay waa qalbi waad ogaatay marka shan qarkii waad ogaatay adoo iska socdo yaa shan qar maqashay أمس ها وان دقي قما حسن وان مقش ها وان هو سيدي أمنا هاجر كل واحد جرتوه كله مركب أرود ديس بين الصفا والمروة ملك الجرير شغل كيسي سهين بالأمس مش أقرب بعض مقش وحواك صوت دولي ها وان مقل شغل قدام بعين مقش مركب الاكتساس وكله مركب أقول سود والبصر أرقي وهكذا به تربي جنا دركته شيء إنك لا أرقو سي إن إيه بتكو أركته والشم ارتبى لسانك إلهي استغنى بعد المركز معنى عجيبة وإلهي سنكي بعد المركز وذا عادي بعرارك أهرون لقوا أورن هيون قرمون يودجون يوالك الوحية والذوق ردا إلهي عربك بعد المركز ويدوشيس إلهي أستغنى معنى عجيب إلهي وبندقي قعنكم أجرن كرتي وح معاني وخرا مالك لكم أجرن كرتي وكعربكم إلهي كو خاصية الفيل وحنا معاه وحنا خراد والفير هذا هو واللمس طابشدي تاني هو ميد جود مال والله لو در اللمس ميد جود هذا كفر شيء هذاك بريده ويقرن هذا كويس أكتر شيء هذاك لقطه ويقرن هذا كويس أكتر شيء كله لقطه ويقرن هذا كفر شيء كله ويقرن هذا قعنته صارت ويقرن سوارك هاي مرك اللمس هو جيت كودن با انت بدن دريم هاي ميد والله waa lagu dareem waa good kuwa kale way ka afarta kale way kala lahaayeen laakiin lamsigu waa u wada dhaxaya jirka oo dhan marka cilmigi kuwa lagu garto la isma diidsin kara waa dhagax baa taabatay wajilacsan ma dhigi kartaa ma isma waxaynis ma isku karaysid ilaa waxa baad markaas iska cado banaanka iska yaal cilmiga noocaas xawaasta ku xasila waxa la cilmi daruuri ama badiihi ah aw bitawatur ama waa cilmiga ma baa xawaastaadii لكن تواتر كو حاصل كل شيء بده متواتر نقض وسيات القران كيو كله قرانك انه كلام الله يمان هذا كشكينين
maya hadda tusaale ahaan waligii ruux waa nin Soomaaliya nin Kismaayo joog oo waligii aan Muqdisho arag hadduu hadda is oran karaa wax Muqdisho la yiraahdo ma jirto isagu muna soo arag uga wadi laakiin waligiis u maqli jiray bulshada wax dhaqanka mutawaatir buu noqday Makka iyo Madiina wax la yiraahdo ma jirto ma oran karaa maya masjidin karaa ma oran karaa Nabi Maxamed wax la yiraahdo ma jiro maya waa shay umar taas kale mutawaatir u noqdo warada hada guriga iska jooga suuqi dabkii waa gubtay suuqi dab baa hadii la yahay bulshada haday isla wada qaylido adigi maada soo bax ama waa min dhoole guriga iska dhax fadhiya ay bulshadii suuqi waa gubtay oo telefoon iyo wixii habartoodi shanqarkii uu samaartay bas cilmi baa u xasilay suuq ma gubanin ma oranayo waayo wakaas cilmiga saa ku xasila mutawaatirka asagana wuxuu noqonayaa daruuri ama nadari waa meelaha aqoonta ku qotantay soo garan miisaan شيء سالوه عقيدته وكعلم الضروري وأما العلم المكتسب وكيف رديت كيسي العلم المكتسب أما العلم النذري مكتسب وحلا كسبه كيف واحد دلقك هو قلبوها كم واحد كسبنا يسوي رأي يسوي دي والبلسوق حوران بلسوق صام مرة هنا ترى شيء كأنه عصا صاح هشام بلسوق دي سمعت وعلم اللي بعده هاي والله كسبنا هاي لسوق باري والله كسبنا هاي وأما العلم علمي المكتسب اللي كسبنا هاي فهو علم قاسي الموقوف ومتك اللي قد الجوجيه كد التاجن على النظر في رفيره إن لو حباره وحلا اللي شامه وحلا راديو يوال استدلالي إن دليل لو دونت دليل إن لو راتسد شيء إن لا فيرفيري واسلامي استدلال بكلا فوقي إن شيء أنت لا فيرفيري الدليل لو راديو علمك أبا هذا كاس اللي هذا مكتسب محاكلوا اللي النذري هذه والله فيرفيرين العلم المكتسب العلم النذري اسكم دوي هاي كل هذوك علم المكتسب هو مدك نظرك كودل تاجن والنظر كشيء وذا محوية وهكذا سجنا كود تعريفي والنظر نظرك هو نظرك الفكر إن لا فكر وي في المنظور فيه شيء لا فيرفيرنا إن لا فكر وي وأنكم أنا مركا وهذا فكركم هو يا مركا شيء إلى المقتى يقول علمك مكتسب كها ومدك ويكحصل نظرك نظركنا وحوي وإنا لقى فكره شيء قاعد فير نيسي فكركم هو يا مركا الفكر ويمرك حركة النفس في المعقولات نفط هذا فير وفكره سو أنا وانا فكر سومالي عادي جاي هبل وفكرها كلكم فكرها يمحوك فكرها وفوفية مكتبت وابل قبان كرا مركا ساعة عادي ويس كلك وقعان قلي وذات كانوا مقية نفتي سوى مالكم مقن شيء قاعد فينا شيء بعد رقرق يسوي مكتب شيء قاعد رقرق على العلن يسوي هدو يا واحد محصوص نياهو هدي دربيان كسيدان laga dhigo oo la isu geeyo meesha mutureelka laga dhigay hadii kin laga dhigi laha oo maxay laga geliyo oo abu maxaa soo bixi laha hadii shay intaan la isku rakibo inta oo shay la isku keeno maxaa soo bixi laha محسوسات وي حركة النفس في المحسوسات كتخيل باليها تخيل باليها وحيالي حواست شنطة اللي قد ريمهاي حداد نفط هذا كوع العلنيس وحلا مغلي وحلا أركي وحلا تابطي وحلا دمي وحلا يسوق جي هذا وحلا على العليسو تخيل باليها فكر كان نحاس هدي هذا مركب واحد علين عن أيق اللي قد ريمين وحيلا عقلها هدي وحاية وحاس محاك دلنكر هذا أنت سو مسألة برته هذا من الهبلة تكتو محاك إيمان كر يعني النوع معقولات كها ونحواس وحلو قرنا يعني هين ولا علينا كاسة وحال إلى هذا وهي فكر بدن كاسة فكر ليه هذا النوع عبر والنظر هو الفكر فكر كي وهي في المنظور فيه شيء اللي فيرنا هي وهي مركز لقوا على العليا مسكحد لقوا على العليا والاستدلال كلا شيء طلب الدليل وي علمي النظري ما علمي مكتسب كها ومدك كدول تاغن نظر او فكر شيء اللي فيرنا اللي هو فكره هي الدليل لو راسدو استدلالكم marka muxuu yahay asay ku sheegay wal istidlaluna طلب الدليل وي لسنتي وتعد waa dalabkay tusinayaan wal istidlalu طلب الدليل وي oo wada daliilka sheegay muxuu yahay شايف ka fircan lugta la istaago والاستدلال طلب الدليل هو دليل كشيء محيي وذاته والدليل دليلكنا هو دليلك المرشد
وأمدك كت ويكون هنونا ويمرك تصالين هيا إلى المظلوم شيء قال ربي دليل كنا شيء قدر تكلمه قاروي شيء مطلوب كها شيء قالوا قارو كل كي دنا وناكسن لو فيري كاسله والدليل هو المرشد وامدك كتوسيه الى المطلوب شيء ويمرك لدلبهي او علامه والظن في هذا مرك علمي غني اما نظري هذا اما ضروري هذا وحدوني بها هذا وجزمي كلكي شيء baaritaan aad ku soo ogaato ama maqal iyo aragti aad ku soo ogaato ama tawaatur aad ku soo ogaato naftaadii oo markaa jazminaysa way shaygaasi sidaa weeye ala dariiqo thubuut shaygaasi sidaa ma aha ala dariiqo nafyi cilmi kaasoo hayso ma aragtid shaygeed caqiidaysay oo go'aansanaa buu cilmigu ahaa hebel inuu yimid baad ogaatay waxaad caqiidaysay baad inuu yimid haddii idraagii qalbiga saa wax looga ogaanayay haddii uu yimaado hase ahaatee jazmigii uusan dhannayn maraatib buu kala yeelan asaguna kolkaad shay haleesho meesha ugu sarreeya jazmi inaad ogaato ahay layman ka sokeeyaa marka jira kuwii marka uu sheekh ku taabtay oo waa ma kuwa ka sokeeyay shaygan inuu saa yahay baad suuraysatay inuusan ahaynna waa suuragal inuu saa yahayna uu ku rajaxan yahay dhanni wadadii marjuuxaydna wahmi way ku siman yihiin shaki intii uu ku raacay marka intii uu ku raacay waa ka meelaha quraanka aad aragteen meelaha dhanniga laga cabiro ilaan dhanna moogtahay dhanna iyo akhawaadkeedii waa kay afcaal قلوب أيقو إسلاح أفعال الرجحان أفعال اليقين وكي لو قيم جري أقو ظن أفعال الرجحان بإهان جرتي ظن أفعال الرجحان بإهان جرتي هسا أهاتي مرر بدن با يقين لو استعمالها ولذا بعد أركيسا قرآن كإن بدن ميلا ظني بعد مركا لقا عبري ظنك إن يقين لقا ديها يبال ظنك إن يقين لقا ديها يبال الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم كوا ملاينها يبا ملك لي أمرك ماشا وحنفع إن إلهي لكلمي ووجه إلهي استاج هذا ملايسو ممكن أنفعه ماله ماشى الذين يظنون معناها يوقنون ويعلمون كاس وهاي أجوا بعض مركز ظن جاس كل كي بمعنى اليقين لو جده وعلمي كل كي ظن رسمي رجحان كان لو جده وكان فيه أنت بدنا حكام شرعي بقى تعلق أجوا ويتركوا إنه واجب يهي هداد أوجاته وابد أوجاتي هدو إنه سن واجب هين هداد أوجاته وابد أوجاتي هدي كلا واد ملايسي الدليل المركز اجتهاد جاء وفقه جاء ومركز أنت بدل لويلي وحكون لسنة هاي ويا الدليل بدل فقه جاء اجتهاد جاء بدل مركز وحلوش لقى سبحي كل ظن بيكون لسنة أقول ظن يعني كل لسنة بل اسكب دا كوانه للموقت ظنك انت بدون خلو عمل فلاو هذا صلاه هذه ميقاد ظنينيسا wax kugu iman haya meeqaabada marka wax kugu iman ظنك marka in badan baa lagu amal falaa waa ka cibaadada la yiraahdo laba ay ku dhisantaa cibaadadu dhanul mukallaf iyo nafsul amr aan la islaahel sala ina waysi qabta ismoodaysi kolka salaatu kadib waxa ku soo baxday inaad waysiisanin dhanigaaga mu ku anfici nafsul amr kiibu khilaafay samaarag ظنك لكن إنه أبها نول يهاد موديس إلى أبها شلو بدنتي سعي وأبها ورها وأذكر إلا أن هذا أضي أتكتهم ملك جيس كوسو ورجوا هذا حلو تاي يا أضو أبها مودي إنه يعني هي بعد دنتي يا ترى إسكنكوا جيل كديس واد قدي ما أنت كل قاعد جوكتم هذا وقتين أبها دنتي إلا إن شاء الله كل قاعد قدي ساعة أبها هو مودناب وأنصحها نفس الأمر ظن المكلف ماشي نفس الأمر بس على فيرنا نفس الأمر بس على فيرنا المكلف لما فيرنا لما فيرنا
marka dhannigu in badan ama quraankiiba adiladiiba aayadda يا حديثك أنت بدن وظاهر الآية كل كليله ظاهر كآية أم حديثك ظاهر كيسة ظنك أنا لقى فائدة يا علم ما قارسنا أجو وأنا إن لو رقم واجب أجو ظنك فائدة لا علم جواش كيس كواضحة لكن ظاهرك أنت بدن ظنك أنا لقى قاطع والظن ظنك تجويز أمرين لبا أمر بنين تودوي أمرين كاس أحدهما متكود أظهر وكم وقال بدن يهي من الآخر ككلا inuu hebel yimid iyo inuusan imanin labaduba waa suuragal laakiin inuu yimid baa ku rajaxan wartu saala ahaan ruux aad ku kalsoon tahay baa hadda ku yimid wuxuu ku yiri waxa dhacay meel hebel roob baa ka da'ay ama waxa saan keenay war ruux aad ku kalsoon tahay ruuxa maxaad ka helaysaa warkiisa waan ku kalsoon tahay dhanni baad ka heli soo u sheegay inay tahay baa ku rajaxan laakiin cilmi yaqiin ilaahay war uu sheegay nabi maxamed war uu sheegay lamid ma ogow waxa ku dhanka kala jira inuusan warku saas ahayn la ruuxan uba khaldami karaay dhinaca kale hooseeya waxa la yiraahdaa wahmi dhinacan rajaxana dhanni baa la yiraahdaa marka ruuxaas fiqada ah dhanni baad ka helaysaa ogow wadhannu tajwiizu amrayni laba amar oo la baneeyo weeye amraynkaas axaduma midkood adharu ka muuqaal badan yahay min al-aakhirka kale وشك شكينا تجويز أمرين لبا أمر أو لبنيه وي أمرين كاسو لا مزية لأحد مع الآخر شك واسكم مد بلتملت وحين يمين إنسان إيمان وكوس إيمانته هبل المين مسمى إيمان واسكم مد هي كوطه شكي بالي هذا هي شيخ مسألة دي هراء أصول الفقه تعريف إلى الملك لفظي أصول الفقه وحكى لنا الملك كو بارباري أصول الفقه لفظه وكان صون الله لبا اعتبار بوليه ميدي waxa weeye kolkii loo ictibaariyo asalkii luqada waxa ahaayeen mudaaf ilayhi yihiin ictibaarka kalena waa markii magaca calamnimada oo fannigan uu magac u yahay usul fiqh la fiiriyo ilaa fannigan usul la iskama dhigi karo fiqhina la iskama dhigi karo asagoo iswata calam iyo magaca calam ku ah kolkii magaca calamnimada fi macna kale kolkii hore wuxuu ku soo sheegay macnihii asalka ilaafiga macnaha calamka wada ku sheegay hadana أصول الفقه وأصول الفقه طرق الفقه وهي على سبيل الإجمال تنشلان أفصومالها إنكم سو شرح أفصومالها ما تنشل أسكر مري وأصول الفقه طرق الفقه فقه طرق ديس أدلة دي سوي أدلة الفقه على سبيل الإجمال الإجمالية وصد ضوبهان أدلة الفقه جود ما كان لها مطلق الأمر والأمر محو فائدة وجوب كان والنهي بعد مطلق النهي محو كان تحريم بو كان كل كان مطلق الأمر مطلق النهي اللي له نهي أو تحريم بو كان أمر أو وجوب كان ما إلا صارف بالهلي وكان أيضا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع والله بأمر أيضا كدم بيس فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله والله أمر أيقونا إلهي أنبا وذجير والله أسحكته لبدا أسك حقنا اسكونا دغو لبدي هore أمر إيجاب باهين أمرك أصلkiisa bay ku socdeen labadan dambana أمر إباحة way waa lagu baneeyo xadhiga labadii hore laga afray bas away macnaha konda masaarif baa la hayaa wujuubka wax ka sarfin baa la hayaa marka mudlaqul amr kulka ujeedadu waa saas وأصول الفقه طرق الفقه فقه طرق دي سي وهي طرق أدلة فقه على سبيل الإجمال ضوضوب وضد لو فيري معنى أدلة جود إجماع محوية هي ما الدليل بو نقضى مسوا هذا مركب من نقضى وأي أمر محل جهلا محو فائدية وأي محو فائدية النهي ساسو كلام إيوه وكيفية الاستدلال قابك لو دليشد بها أدلة جو قابك لو دليشد ورجماع من حج النقضة أما سي إجماع أدلة يقول كور حج النقضة إجماع أيوه أيضا ديس كور يمادان سيلو كلا هرمريا إجماع سكوتها إيه كواد مركز كي واد مركز قولها سيأكل حب بدهن سيلو كلا رجح آيدي عام يا خاص من نوع عام من نوع خاص سيلو كلا هرمري سمعت قابك لا دنفير كل كله يجري
والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء قبل لا فرو دم بالي انت كو اسبح ولا قابك لو دليشن والمطلقات قبلها لا فري يتربصن بأنفسهن 3 قروء صدح ظهري بي سوغايان بل صدح واي ظهري وانا هلان تي اور كلايد كما جرتو ماشي تي ولا مركاس ان لا جماع كما جرت قبل دخولها كما جرتو ما بين عده ترسنيس تي واي مركاس سمعتي way wada kala duwan yihiin tii wali aan dhiig arag kuma jirto tii dhiig ka baxdan ma baxayd kuma jirto waxa soo dhacayda kala ka saarsaaraya marka waa qaabka Soomaaliyeed qaabka loo kala dalishanay oo wax la soo waafajinay wa kayfiyatu al-istidlal biha waxa marka ku jirta shalay waan idin ku diray wal mustadillu biha mujtahid wal mustadillu biha ilaa nin walba miyo aayadii ahadi mukala ratibanin walba maya wal mustadillu biha wa huwa al-mujtahid saddexdaas weeye usul fiqh fannigaas adilada guud ee fiqhiga laga qaato adilada qaabka wax looga qaato cid wax ka qaadan karta saddexda weeye Allah subhanahu wa ta'ala alam